injiilka sida Matayos u qoray cutubka 7 goortii aroortii la gaadhay wadaadadii sare iyo waayeeladii dadka oo dhan ayaa Ciise wax ka geesa ka wada hadlay si ay u dilaan markaasay xidheen oo kaxeeyeen oo waxay u dhiibeen taliyihii Bilaatos ahaa markaas Yudas oo ahaa kii gacan geliyey goortuu arkay in la xukumay ayuu isqoomameeyey oo 30 googo oo lacagta ahaa ayuu wadaadadii sare iyo waayeeladii ku celiyey oo wuxuu ku yidhi waan dembaabay markaan gacan geliyey dhiig eedla laakiin waxay ku yidhaahdeen maxaa noogu jira yeelka markaasuu lacagtii macbudka gudihiisa ku daadsay oo ka tegey wuuna baxay oo isdeldelay kolkaasaa wadaadadii sare lacagtii qaadeen oo waxay yidhaahdeen xalaal maaha in khasnadda quduuska lagu rido waayo waa dhiig iibkiis markaasay ka wada hadleen oo waxay ku iibsadeen dhulka dherisameeyaha in shisheeyaha lagu aaso sidaa daraaddeed ilaa maanta dhulkaas waxaa loogu yeedhaa dhulkii dhiigga markaas waxaa noqotay wixii nebi Yeremiyah lagaga hadlay markuu yidhi waxay qaateen 30 googo oo lacagta ahaa oo ah iibkii lagu qiimeeyey isaga kii bini Israa'iil ku qiimeeyeen waxayna ka bixiyeen dhulka dherisameeyaha sida Rabbigu iigu amray Ciise wuxuu hor istaagay taliyaha oo taliyihiina waa weydiiyey oo ku yidhi ma boqorkii Yuhuudda baa tahay Ciisena wuxuu ku yidhi waa tidhi goortii wadaadadii sare iyo waayeeladii ay ashkateeyeen waxba uma ay jawaabin markaasaa Bilaatos ku yidhi miyaanad maqlaynin waxa badan oo ay kugu marag furayaan laakiin uguma uu jawaabin xataa erey keliya sidaa darteed taliyihii ayaa aad ula yaabay taliyihii waxaa caadadiisu ahayd inuu ciidda dadka u sii daayo maxbuuskay doonayaan markaasay waxay lahaayeen maxbuus caana oo la odhan jiray Baraabas haddaba goortay isu urureen Bilaatos ayaa ku yidhi iyamaad doonaysaan inaan idiin sii daayo Baraabas ama Ciise kan Masiixa la yidhaahdo waayo wuxuu ogaa inay xaasidnimo ugu soo dhiibeen kolkuu kursiga xukuumadda ku fadhiistay ayaa naagtiisii fariin u soo dirtay oo waxay ku tidhi ha dhex gelin xaajada ninkaas xaqa ah waayo maanta anigoo ku riyoonaya isaga ayaan aad iyo aad u xanuunsaday laakiin wadaadadii sare iyo waayeeladii waxay dadkii badnaa ogolaysiiyeen inay Baraabas weydiistaan Ciisena la dilo laakiin taliyihii ayaa u jawaabay oo ku yidhi labadooda keebaad doonaysaan inaan idiin sii daayo waxay yidhaahdeen Baraabas markaasaa Bilaatos wuxuu ku yidhi haddaba maxaan ku sameeyaa Ciise kan Masiixa la yidhaahdo kulligood waxay wada yidhaahdeen isku tallaabta ha lagu qodbo oo wuxuu ku yidhi waayo waa maxay sharkuu falay laakiin aad bay u sii qayliyeen oo yidhaahdeen isku tallaabta ha lagu qodbo Bilaatos goortuu arkay inuusan waxba ka tari karin in rabsha kacdo moohee ayuu biyo qaatay oo dadka hortooda ku gacmo dhaqday oo wuxuu yidhi anigu waan ka eed la'ahay ninkan xaqa ah dhiiggiisa idinku yeelkiina dadkii oo dhammuna waa wada jawaabeen oo yidhaahdeen dhiiggiisu annaga iyo carruurtayadaba ha dul saarnaado markaasuu Baraabas u sii daayey oo goortuu Ciise karbaashay ayuu u dhiibay in isku tallaabta lagu qodbo markaasaa taliyaha askartiisii waxay Ciise geeyeen guriga taliyaha oo waxay isaga ku soo ururiyeen askartii oo dhan dharkiisii ayay ka qaadeen oo waxay u geliyeen dhar guduudan markaasay taaj qodxan uga taxeen oo madaxiisay saareen caws-duurna gacantiisa midigtaa ayay geliyeen oo intay hortiisa ku jilba joogsadeen
oo ku majaajiloodeen ayay waxay ku yidhaahdeen nabad boqorka yuhuuddu wayna ku candhuufeen markaasay cawsduurkii ka qaadeen oo madaxay kaga dhufteen oo goortay ku majaajiloodeen dabadeed ayay dharkii ka qaadeen oo dharkiisii bay u geliyeen markaasay wadeen in isku tallaabta lagu qodbo goortay soo baxeen waxay arkeen nin reer koranaayo ah oo simoon la odhan jiray kanay ku khasbeen inuu isku tallaabtiisa u qaado oo goortay yimaadeen meel golgota la odhan jiray tan la yidhaahdo meeshii dhakada waxay siiyeen inuu cabbo khamri xameeti lagu daray goortuu dhamdhamiyeyse wuu diiday inuu cabbo oo goortay isku tallaabta ku qodbeen dharkiisay qaybsadeen wayna saami riteen si wixii nebigu ku hadlay u noqdaan dharkaygii bay qaybsadeen oo maradaygii bay saami u riteen meeshaasna ayay fadhiisteen oo dhowreen waxay meel madaxiisa ka korraysa ku qoreen ashkatadii lagu ashkateeyey oo leh kanu waa ciise boqorkii yuhuudda markaasaa waxaa isku tallaabo lagu qodbay laba tuug mid midigta midna bidixda kuwii ag marayna waa caayeen oo intay madaxooda luleen waxay yidhaahdeen kaaga macbudka duminayow oo 3 maalmood ku dhisayow isbadbaadi haddii aad tahay wiilka Ilaah oo isku tallaabta ka soo deg sidaas oo kale ayaa wadaadada sare ugu majaajiloodeen iyaga iyo culimada iyo waayeeladuba oo waxay yidhaahdeen kuwa kale ayuu badbaadiyey qudhiisa isma badbaadin karo waa boqorka Israa'iil haddeer isku tallaabta ha ka soo dego annaguna waanu rumayn doonaaye Ilaah buu isku haleeyey haddeer ha bixiyo hadduu isaga ku faraxsan yahay waayo wuxuu yidhi waxaan ahay wiilka Ilaah tuugaggii isku tallaabta lagu qodbayna sidaas oo kale ayay u caayeen haddaba saacaddii 6 ilaa saacaddii 9 dhulka oo dhammu gudcur buu ahaa abbaaraha saacaddii 9 ciise ayaa cod weyn ku dhawaaqay oo ku yidhi eli eli lama sabaqtani waxaa weeye ilaahayow maxaad ii dayrisay kuwa halkaas taagnaa qaarkood ayaa goortay maqlay yidhi kanu wuxuu u yeedhayaa Eliyaas kolkiiba midkood baa orday oo qaaday geed isboonji la yidhaahdo oo khal uga soo buuxshay oo intuu cawsduur saaray ayuu siiyey inuu cabbo kuwa kale ayaa yidhi daaya aynu aragne inuu Eliyaas yimaado oo badbaadiyo markaasaa ciise goortuu mar kale cod weyn ku dhawaaqay ruuxii bixiyey oo bal eeg daahii macbudka ayaa kor ilaa hoos 2 u kala dilaacay dhulkiina waa gariiray dhagaxyadiina waa kala dildilaaceen xabaarihiina waa furmeen oo quduusiin badan oo hurdayna maydadkoodii waa la kiciyey sara kiciddiisa dabadeed ayay xabaalaha ka soo baxeen oo waxay galeen magaalada quduuska oo waxay u muuqdeen dad badan 100 u taliyihii iyo kuwii la jiray oo ciise dhowrayey goortay arkeen dhulgariirkii iyo wixii dhacay aad bay u baqeen oo yidhaahdeen runtii kanu wuxuu ahaa wiilka Ilaah waxaana halkaas joogay dumar badan oo meel fog ka eegayey kuwii ciise ka soo raacay Galili oo u adeegi jiray isaga oo waxaa ku dhex jiray maryantii reer magdala iyo maryan oo ahayd yacquub iyo yoose hooyadood iyo wiilashiisa badi hooyadood goortay casarkii ahayd waxaa yimid nin reer arimateeya oo hodan ah oo yuusuf la odhan jiray oo isaguna ciise xertiisa ahaa kaasi wuxuu u tegey bilaatos oo ka baryey ciise meydkiisa markaasaa bilaatos amray in loo dhiibo yuusuf goortuu meydkii qaaday ayuu kafan nadiifa ku duuduubay oo wuxuu geliyey xabaashii cusbayd tan uu dhagax ka qoday oo xabaashii afkeeda wuxuu ku soo geringeriyey dhagax weyn wuuna ka tegey
oo halkaas waxaa joogay maryantii reer magdala iyo maryantii kale oo waxay fadhiyeen meel xabaashii ka soo horjeeda. maalintii dambe oo ku xigtay maalintii diyaargarayska, wadaadadii sare iyo farrisiintii waxay u wada yimaadeen bilaatos oo waxay ku yidhaahdeen, sayidow, waxaannu xasuusannahay in khaa'inkaasuu yidhi intuu weli noolaa, 3 maalmood dabadeed waan soo sare kacayaa. haddaba amar in xabaashi aad loo dhowro ilaa maalinta 3aad, inaan xertiisu iman oo xadin oo aanay dadka ku odhan kuwii dhintay wuu ka sare kacay, oo aanay khiyaanada dambe ka sii xumaan tii hore. bilaatos wuxuu ku yidhi, waardeeyaal baad leedihiin, taga oo adkeeya in alla intaad adkayn taqaaniin. markaasay tageen iyaga iyo waardiyayaashii oo xabaashay soo adkeeyeen, dhagixiina way shaambadeeyeen.